iska ilaali ha noqonin gabadh yar oo la siro oo waxyaabo badan laga faa'iideysto iyo khaasatan hablihii yaryar ay ugu gelayaan guurso waad yar tahay in xumaan ku sameynayaan gabadhna kadib video ka duub iyaduna wax ka faa'iido macdo inaad السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وولاشين كل سنة كان نقول سعودينا واد مركبة channel سو دو والله هذا مركي voice channel كتاعي دركتي سبسكرايب نوصار فيديو هذا كشيء لايك نوصار يعني أصحابته وشركريه لو ذاك وحي فرينا كومنت نوقره إن شاء الله هدية بين السلامية أحنا وذا موضوع كمده موضوعي هورين وسعن شري يعني دمر كوب صاب سنة عم بحولها dumar yaan oran wali yaryarkii waan soconaa marka waxaan inoogu joogtay marka 15 gaadho hooyo gabadhaada waxyaabo badan uga digi kartaa fiidiyoogii hore inoogu eeka fiidiyooga maanta waxaan kasii bilaabaynaa walaalo maanta waad weynaatay waad qaangaadhay laakiin wali wax badan ma fahansanid walaal iska ilaali inaan lagu sirin walaal iska ilaali ha noqonin gabadh yar oo la siro oo waxyaabo badan laga faa'iideysto hadda wad arkaysaa adduunyada sida u socoto wad arkaysaa maxay haday sida ragii ay dumarkii iyo khaasatan hablihii yaryar ay ugu gelayaan maanta dhan xumaan ku sameynayaan haddana kadib video ka duubayaan miyadan ku tusaale qaadanaynin miyadan arkaynin say wax u jiraan miyadan arkaynin wax socda maxay haday waxa samaysaa walaalo si aad uga badbaadid arimahan oo dhan guurso waad yar tahay maanta maxay haday aad qaan gaadhay waad yar tahay waad u baahan tahay maxay haday inaad aragtid noloshii hore ka duwan waayo waad isbedeshay adigu sidii hore matiigad weynaatay ma sha Allah guurso waalidiinta Soomaalida waxaan kula talinayaa wiilkooga haduu gabadh haduu keensado waa la dhisaa waa la maxay haday waa la caawiyaa waa la garab istaagaa maxaa ku diiday in aad gabadhaada iyadoo yar hadii ay guur damacdo inaad aad caawisid oo la dhistid garab istaagtid maxaa ku diiday gabadha iyo wiilka miyaan isku sii u dhalin mise dumarka amba gabadhaada dhashay waxaad ka sugaysaa in iyadu wax ka heshid oo wax ka faa'iidid iyaduna wax ka faa'iido martimiya sax weyn ognahay oo maxay haday gabadha waarno nin baa soo doonaya nin ha soo doono ma xuma laakiin hadii iyadoo yar oo waxbarashadii dugsiga sare dhamaysay amba ku jirta ama jaamacad gashay ay doonto inay guursato amba aad aragtid inay saansaayada ay leedahay inay macnaha ay sheekeynayso waxaasi ha gabadhaada ha eriyina ha fogeynin ha oraninaaya maxay haday wali waad yar tahay imakum baad iskuulkii dugsiga sare ku jirta aad sii dhamaynaysaa amba aad dhamaysay jaamacad gelaysaa guurkan iyo waxaan la degdegaysa maxay tahay maxaa ka dhulyaala na wax baro oo maxay haday shaqayso oo sidan yeel ha oranin iyadii wax baranaysa iyadii shaqaysanaysa ay dhaqan karaysa iyadii maxay haday hawlaheedu wada tabay reerkeedana dhaqan karaysa ku garab gal oo ku garab istaag oo maxay haday si xumaantan iyo waxaan laga kaaftoomo maalin kastaba gabadha lagu soo sameynayo ku garab gal hooyo gabadhaada guuri ku caawi sida maxay haday gurigeeda u dhisan lahayd war inta caalamka maxay haday dadka caalamku ee aqliga leh intay gabdhahooda iyo wiilashooda yaryar oo waxbarashada ku jira amba jaamacad ku jira amba dugsiga sare imka ka baxaanay ay isku dhisaan oo ku garab istaagaan markaas walibana si aanay waxbarashada carqalad uga gelin ay maxay haday family planning isticmaalo ku lahaadaan family planning isticmaalayaan sanadkii labada sano ugu horeysa intay maxay haday ay mas'uuliyadii reerka iyo waxbarashadii isla hagaajinayaan isla meel dhigayaan waxay sameeyeen ilmo ma dhalayaan family planning baa la siinayaa sidaas ay tahay reerkoodu bay dhaqanayaan xumaantii way ka kaaftoomayaan maxay haday wixii inta ka soo sokeeyana ubadkan Ilaahay baa hayay laakiin family planning baa la siinayaa saas bay maxay haday sanadii labada sano ugu horeysa ku wadanayaan sanadii labada sano ugu horeysa hadii ka gudbaan oo maxay haday ay fahmaan mas'uuliyadii waxbarashadii mas'uuliyadii reerkii waxbarashadii ay iskula dhacaan waxay sameynayaan markaas bay wax iska dhalayaan amba ha dhameeyaan amba waxbarashadii amba sii wata laakiin ilmo way dhali karaan maxay noo diideen ka tan Soomaalinahay wiilkii gabadhii waxa la leeyahay wali waad yar tahay in waxbarasho ku jirta wareeyaa shaqo tag
nayaa maxay haday weli wixii kugu soo koriyay kaamaan dhadhaminin sidan iyo sidan iyo sidan waa kaas maalin kasta xumaan baa lagu dhacayaa awal xumaan haba la iskaga dhaco oo haba qarsoonaato imika waxa ka sii daran video baa la iska duubaya maalintu ilaahay keenaba waxa la sheegaya gabadh baa la soo qarxiyay baa la leeyahay alxamdulillah kastoona anigu arag laakiin sida la sheegay meel halkan oo telegram la yiraahdo waxa lagu leeyahay waxa inan yar ku jirta wad yaabsa video laga keenay miyana ilaahay laga baqaynin miyana maxay haday aakhir ina sugin miyana dad muslima ahayn ma muslimnimada iyo diintu ma waxayna qabataa marka kaliyaata ay gabadh khaldanto ma waxayna qabataa marka kaliyaata maxay haday wax weyn laga hadlay markaas kaliyaata mid islaamnimada qabataa miya markan wiil yar gabadh yar xumaan isku sameynayaan hadana video iska duubayaan markaas oo kale islaamnimo ma jirto miya markan hooyo iyo aabbo gabadhaada iyo wiilkaaga intii guur ku soo bandhigsan inay guursadaan aad caawin weydid ee waliba ku tiraadid waad yar tahay wax baro oo shaqayso markaas miyaan islaamnimadiina qabanaynin markaad leedahay sidaasi miyaan ogeyn inay xumaan ku dhici karayaan labadan qof sidan hal iska daayo hooyo aabbo ilmihiina garab qabta guurka u dedejiya iyo kiyo guursaday wiil iyo gabadhow isku guur hadaad rabtaan isla soo bandhigta waxa ugu yar haba maxay xidhi xataa haba wada degina ayadana reerkooga ha deginaato adigana reerkiina degano laakiin laba qof oo isqabo xumaantii ka kaaftoomo noqda waxbarashadiina wata maxay yahay family plan isticmaala ilmaha iska yara daaya sanad iyo laba sanad ugu horeysa waxbarashadiina dhamaysta haddaad waxbarashadii dhamaysteen shaqo imika bilowdeen labadiina wada shaqaysto wada shaqo taga maxay family planningaas isticmaala caruurtiina waalidkiina iyo la kala noolaada mid kastaba guriga hooyadii ha ku noolaado sidaa maxay haday imika markaa xumaantii baad ka kaaftoonteen dad waxbarashadoodii amba shaqadoodii bilowga waxayd ka kala dhacday ma tihidin intaad maxay meel diyaarsanaysaan xumaantii baad ka kaaftoomaysaan hadhow toolana laba qof oo waxa ku yidhi xumaantii kasoo wada kaaftoomay oo waxbarashadii soo dhamaystay amba maxay haday shaqooyinkii iska watay oo diyaarsaday meeshii degi lahaayeen baa isku imanaya حتى هكا قرح بدن والله أدي هاد بقرح عن تاي مرتا واحد ينكجت تجي والده عرفتي نقرب قبته كور كور في البيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.